munaasabad ballaaran oo lagu sawootinaya ardayda wax ka barata dalka Itoobiya ee reer Somaliland ayaa lagu qabtay xarunta safaaradda Somaliland ee dalka Itoobiya waxaana munaasabada ka soo qaybgalay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland abwaano iyo mashaarif kale waxaana munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah guddida qabanqaabada munaasabada qaran jabinta ardayda reer Somaliland ee wax ka barata dalka Itoobiya kuwaas oo ka sheekay habkii hanaankii ay ugu hirgashay qabashada munaasabada qaran jabinta ardayda reer Somaliland ee wax ka barta dalka Itoobiya waxaana ku amaaneen ku-xigeenka safiirka Somaliland ee dalka Somaliland ee dalka Itoobiya ambassador ayaan la saadiyay gacantii uu ka siiyay qabashada munaasabada qaran jabinta ardayda reer Somaliland sidoo kale waxaa munaasabada qaran jabinta ka hadlay mas'uuliyiin ka mid ah wasiirka hore wasaaradda macdanta iyo biyaha Somaliland Mariyaha Sanfalka madaxtooyada iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco kuwaas oo dhamaantood isku dabamaray qiimaha ay leedahay waxbarashada kuwaas oo ku booriyay ardayda dhameystay waxbarashada inay halka ka sii wadaan dadaalkooda una adeegaan dalkooda iyo dadkooda sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay abwaan Maxamed Ibrahim Mursame Hadraawi isagoo ku dartaaray ardayda dhameystay waxbarashada ee reer Somaliland ee wax ka bartay jaamacadaha dalka Itoobiya inay dadaalkooda halka ka sii wadaan waxbarashadana si kororsadaan waxaanu ku booriyay inay u adeegaan shacabkooda iyo dalkoodaba waa mamnuuc ama ma jirto qalkiyo jirto sidii aqoonti adduunka jirtay oo dhan ka soo dabalaabtay ma suuragal maaha oga waxaad baranaysaa laakiin qalka lama jabiyo meel kasta gaad qalku waa ka adkay wax ku qorayso waa ka wax lagu bartay ay musirana qalin la yiraahdo waa qalin jirin baa la yiraahdaa weynaynta qalinka waxa weey qofkii hadii aad tahriib u galeysaan oo ku ordasaan wadankii waa ku baahan dadkan wadamada agtagasana dad baa dhistay oo horumarkan sameeyay waana dad 9 bilood ku dhashay in la mid ah madaxweynaheena Axmed Maxamed Maxamuud Jiilaanyo runtii madaxweynihii dhalinyarta iyo haweenka sida aragtaan hada xafiisyada tagtaan hada agaasimayaasha aragtaan waxaana munaasabada soo afmeeray safiirka Somaliland ee dalka Itoobiya ambassador ayaan la salaadiiriyay isagoo sheegay inay tahay markii koobaad ee lagu qabto xarunta safaaradda Somaliland qaran jabinta ardayda reer Somaliland ee wax ka barta dalka Itoobiya sidoo kale waxa uu ka sheekay xiriirka u dhaxeeya labada dal ee Itoobiya iyo Somaliland waxaana hadalladii safiirka kamid ahaa labada wadan waxa la doonayaa xiriirkooda inaad nooleysaan meel kasta oo aad joogtaan xiriirka aad ka shaqeysaan isfahanka iyo wax wada qabsiga iyo walaaltinimada iyo isdhexmarka labadan wadan ee walaalaha ah inaad ka shaqeysaan Itoobiya waa wadanka inoogu dhow adduunka waa walaalahe ilaahay baa inaga dhigay dadka isugu dhow dunida maadaama ay sidaa tahay waxa waajiba labadeena dawladoodba inaynu wanaaga iyo wax wada qabsiga iyo iskaashiga iyo wada faraxsanaanta iyo isdhexmarka aynu ka qayb qaadano idinkana waajib gaar ah ayaa idinka saaran maadaama aad tihiin ardaydii halkan wax ku bartay munaasabadan lagu sabootinay koob iyo 80 arday ayaa ahayd mid sidii heer sare ay uga wada qayb qaateen jaaliyada ardayda iyo madaxda safaaradda Somaliland ee dalka Itoobiya qabashadeeda si loo sabootin lahaa ardayda wax ka barata dalka Itoobiya